shirkan lagu soo bandhigay guulihii uu gaaray mashruuca geel oo muddo 5 sano ah ka shaqeynayay gudaha dalka waxa ka qayb galay xubno ka socda rugta ganacsiga Soomaaliyeed qaybaha kala duwan ee bulshada wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda beeraha ee xukuumadda iyo mas'uuliyiin kale oo ka socotay maamulada Hirshabeelle ee Koonfur Galbeed Maxamed Cabdinuur oo ah maamulaha mashruuca geel ee Soomaaliya ayaa sharaxay waxqabadkooda inta ay soo shaqeynayeen ascaasay ilaa Ras Kamboni meel kasta ha noqoto kalluun ha noqoto beeraha ha noqoto xoolaha marka mashruuc qaybo badan aan ka shaqeynay meel kasta oo Soomaali ah waxaan isku daynaa inaan ka shaqeyno oo wax kasta ka qabanaa laakiin baahida way badan tahay fursad ahaan anaga waxaan rabnaa waqti kasta inaan tusno inaan taageerno Soomaalida ganacsatada wax ka soo sameeyaan si uu u dhiirigelina wax soo saarka iyo kobcinta iyo maalgashi oo shaqo abuur u sameeyaan wadanka maamul xirsiye Cabdulle Siyaad oo kamid ah ganacsatada ay soo wada shaqeeyeen mashruucan ayaa tilmaamtay in wax badan ay ka faa'iideen iyada iyo dadkii ku xirnaa ganacsigeeda haween ma dhameyn waxa aan inta aan u geeyo mooska aan u qaado iyo qudaarta aan ku dhiirigeliyo oo aan iraahdo qudaartan gata faa'iidadiina reebta lafihii galabta aan idinkugu imaado laakiin baahidii badneed oo haweenka ganacsatada ee markaan arkay geel waxaan ka codsaday inay igu caawinto haweenkaas ganacsatada waxay igu samaysay 50 miis oo magaca Sanfaresh ku qoran oo quruxdii magaaladana ah wasiiradii ka socda maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay in la dhiirigeliyo wax soo saarka beeraha kalluumaysiga iyo dhaqashada xoolaha marka mashaariicda noocan ah iyo mashaariicda waxay ka qayb qaadanayaan nabadgelyada dalka kaliya ma ahan dhaqaalaha laakiin waxay ka qayb qaadanayaan nabadgelyada shaqo abuur badan dabcan u sameynayaan dhalinyarta hal mashruuc la abuuraa waxa laga yaabaa in 100 qofood ka badan ama 500 qofood ka badan ay si indirect ah ugu faa'iideysato iyo fikrado cusub inuu yimaado waxa howlo badan aan la qabtay mashruucan geel kalluumaysiga noqoto ama beeraha noqoto si dhow baan ula socday hoggaankeeda Maxamed Cabdinuurne howlo badan buu ka qabtay iyo inta la shaqeysay Soomaaliya geeska gees ma haddaas gaarka howlwadeennada ayaan u gudbinayaa wasiirka wasaaradda beeraha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa tilmaamay in mashruucani uu shaqooyin wanaagsan ka soo qabtay dhinaca horumarinta beeraha dalka idea uu ku dhisan yahay oo waxay tahay idea runtii fiican oo ah in qofkii Soomaaliga ahaa oo sectorka ka shaqeynayay iyo hay'ad mashruucu ay wax isku darsadaan waxaan co-investment-iga loo yaqaano inay isla fuliyaan qofkuna qayb keensado iyagana qayb ay ugu daraan taas waxay dhiirigelinaysaa qofku inuu ka dhab tahay inuu waxaan rabo inuu meel ka gaar maxay lacagtiisa u gelinayaa mugta oo isbedelka ku dhacay wax soo saarka dalagyada laga shaqeeyay abuurkooda uu yahay mid muuqda maanta mashruuca geel waxa uu kaalin weyn ka qaatay intii uu shaqeynayay horumarinta wax soo saarka beeraha maalgelinta dadka danta yar kalluumaysiga iyo sidoo kale dhiirigelinta dhalinyarada Mukhtaar Cabdi Ciise Macad warbaahinta qaranka Muqdisho